kusoo dhawow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan saar subscribe notification-kana furo siday ku soo gaaraan muuqaalada cusub ee soo gelino isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كلمات حكو سابسين special conversation ووضع شيكيسي خاص أهويا ووضع شيكيسي خاص واني وخالد عبدي هالكنا وصومالي أونلاين أكاديمي لسعو عشر كورنا ما يصيران هضبا u baahnay barashada luqadda Ingiriisiga ma heli weyday chance aad ku tagto iskuul ama fasal. Haddaba waxaan ku diyaarinay hal cusub oo ah barashada luqadda Ingiriisiga adiga oo jooga gurigaaga. Haddii aad danaynayso nagala soo xiriir WhatsApp numberka shaashada ku qoran. waxa uu yiri though inkasto I'm not a politician aan ahayn ruux siyaasiya I'm not a politician aan ahayn ruux siyaasiya I would like waxaan jeclaan lahaa to discuss about inaanu ka doodno the tragedy musiibada ama balaayada of muslimiinta Muslim people dadka muslimiinta in Burma ku dhaqan wadanka Burma. How do you see that? Sidee arrinka u aragtaa? How do you see that? Sidee baad arrinka u aragtaa? I have no objection about that. وحدين ما كما قبل بوري. I have no objection. وحدين ما كما قبل about that. أرنكا وحدين ما كما قبل أما كما سهول شيء أرنكا وصف عن. وحول مركب وحول. If we are هذين ونهاي pure مسلمين صافية أم مسلمين برحرة we must have وإننا نهاي سنة compassion نحريص and sympathy على الشريعة because محايا the Quran first آية القرآن ayaa says waxay tiraahdaa the believers Muslimin to our brothers wa walaalo inama almuslimuuna ikhwa so why sida daraadeed sababa ayaa the muslimiinta in Burma wadanka Burma ama Myanmar ee dadka Rohingya ay ku dhaqan wadanka Myanmar ama Burma arkid ayaa massacre ayaa loo xasuuqa taajir loo jirdilaa aan kir loona dila inhumanity si ka baxsan ibn aadantinimada inhumanity xalay si ka baxsan ibn aadantinimada what we always watch waxaan badanaa ka daawano from the social media baraha bulshada of Burma wadanka Burma ay soo tofro wax sharci ka baxsan on inhumanity waana wax ibn aadantinimada ka baxsan so the Christian people sida dadka Kristaanka juristo waa inay joojiyaan dad genocide xasuuqa waa inay joojiyaan buu yiri waxa uu though I am not a politician kason siyaaseen I would like waxaan jeclaan to discuss about inaan ka doodo tragedy musiibada of Muslim people dadka muslimiinta ee Burma wadanka Burma ku dhaqan. How do you see that said arrinka aragtaa? I have no objection about that waxdiin ma kama qabo. If you are being Muslims then I'm Muslims afi way masaafooyin haysana compassion naxariis and sympathy iyo calol jireec because maxaa yeelay the Quran first ayat Quran says waxa the believers are brothers muslimiintu waa walaalo so why sidaa daraadeed sabab ayaa muslimiinta ee Burma wadanka Burma ku dhaqan massacre loo xasuuqa and touch loona jirdilaa inhumanity ka baxsan ibnaadintimada. What we always waxaan badanaa watch ka daawano from the social media baraha bulshada in Burma wadanka Burma soo flow wax sharci ka baxsan inhumanity waxay ibnaadintimada ka baxsan show that the Christian people dadka Kristaanka juristo waa inay joojiyaan genocide xasuuqa waa inay joojiyaan dadka Kristaanka ah. halkaas ayuu noogu jeegi doonaa maanta till next lesson. Assalamu alaikum. ordaya dugsiyada u aada waxaan ordaya dugsiyada u aada inaan aqoon kooda saado dadkayga